gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Mudane Axmed Meyri Makraan ayaa maanta kormeeray dhalinyaro tababar uga socdo xero ku taala magaalada Jowhar oo isaga kala yimid qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Dhexe. maamulka gobolka oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Axmed Meyri Makraan ayaa dhalinyaradaasi ugu deeqay neef geela si ay u dhiirigeliyaan waxaana deeqda hadiyada ah ka gudoomiyay taliyaha guutada saddexaad mahad celinayna maanta geela oo noo keenay gobernatoraha gobolka oo noo keenay oo noo mahad celinayna u keenay ciidamada cusub ee mutadacnimada ku soo qorta xooga dalka ciidamada gobolka noqdaan ay qorsheysteen kuna qaadanayaan tababarka geelaas oo u keenay gudoomiyaha gobolka ayaan aad ugu mahad celinayna. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyri Makraan ayaa khudbad dheer u jeediyay dhalinyarada oo isugu jirta bogaad maanta waxaan maartay ciidanka cusub oo tababarka loogu furay dad tababaraayo oo hami u leeyihiin ciidanimada inay maartay ka qayb qaataan difaaca wadanka ama difaaca gobolka ay ka qayb qaataan yihiin run ahaantii waa dhalinyaro aad iyo aad spiritkooda u wanaagsan yahay annagana hadduu Ilaahay yiraahdo in Allah intaan kari karno waa la garab istaagayna ka gobol ahaan waxaa ka muuqato inay maartay wax badan ay ka dhiman yihiin run ahaantii ay maartay libis haysan ay maartay meel adagoo maartay qoraxdan ay maartay tababar ku qaadahayeen marka hadduu Ilaahay yiraahdo maanta maartay inaan xoolahay ay ku qadeeyaan neefkaas ayaan maartay iyo u soo garanay waxa kale oo dhiman hadduu Ilaahay waa isla joognaa ka gobol ahaan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ka qayb qaadaynaa dhisitaankooda iyo horumarkooda iyo sidii tababarkooda u gudalaayeen ayaan kaalinta nooga aadan ka qaadaynaa ayagana waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa mustaqbalka gobolkan iyo qaybo kamid ah maarta wadanka adawga ka xoreey inay noqdaan rajayna. dhalinyaradan ayaa ah kuwa iskood ugu soo biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Mahad Axmed Cali Soomaad Wara TV-ga caalamiga KGS magaalada Jowhar xarunta maamulka Hirshabelle.